laba qiso ayaan doonayaa inaan idin wadaago oo dhalinyarta tusi karta si ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqotee hadduu qofku isagoo dariiqii macsida ku socda hadduu istaago oo naftiisa la xisaabtamo uu isweydiiyo ciddu yahay qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobada waa ka aqbaliya una soo noqonaya laakiin waxa weey waa inuu kartida lahaado oo rabbigii ku kalsoonaado naftiisa ku kalsoonaado umar walba xusuusta inuu change iyo tagyiir iyo isbedel ku sameyn karo noloshiisa sheekh baa laga soo warinayaa masriya xajkan beeheed baan filayaaba intii aanu xajki bilaawmin ayaa nin baa yimid ninku wuxuu igu yiri sheekh waxaan cabaa shiishada waa tiimaka walaalkeen ka hadlayay presentationka shiishadan cabaa hukana waa la yiraahdaa laakiin buu yiri bahasha shiishada kuma kayfo oo kuma marqaamo illa an ajaradahaaga daawado adigoo muxaadaro bixinaya mooyaane bahashu ima dhaadhacaysa ima dhaqaajinayso sheekhu waa sheekh maxamed yacquub waad garanaysaan sheekh maxamed yacquub Allah yahfaduhu xaalkaygu waa saabuur inaan cabuun ma ahe haddaanan shidin fiiriyahaaga ajarada aan daawan marqaankaba ma garanaysaa ma gaarayo wuxuu ku yiri sheekhow laakiin xajkan inaan adiga aan kula socdo ayaan doonayaa ilaa xajku inoo dhamaanayo adiga aan kula soconaya sheekha ka sheekayna wuxuu yiri ninkii uu nala socday uu nala xajiyay Arafa Musdalifa Mina wixii oo dhan tawaafkii markii maalimihii ugu dambeysay ayaa uu idadajinaya sheekh maxaa dhaqso inoo socodsi cidaan la istaago sheekh dad hadalkaaga bateen socodsi inuu tawaafno waanu tawaafnay una la tawaafay maqaam Ibraahim kii uu taysoo laba ragcadood ugu tukado markuu labadii ragcadood uu galay isagoo sujuudsan ay nafti ka baxday balinku qiyaasa yani ikhwani nihayadaasi ah in qofku naftu ka baxdo isagoo beedkii Ilaahay ku jira bal maqaam Ibraahim ku jira in hortaagan oo waliba sujuudsan bal fadaa'isha isku darsantay ninkaay waa muhrima wa hajiya beedkii Ilaahay buu ku dhex jiraa إلهي بو أسجود سينيه بالله عليكم كم من العباد نرشد كل ما أفنوا أعمارهم نرشد يعمروا كل ما عبادة قيام الليل الذكر الصلاة الصوم تمنيه إن نهاية ذاسي نرشد كل بيصو لكن الله أنصين لكن إن كان من الشيشة شيشو عباي shiishadana waad garanaysaa sharkeyga wuxuu ku dambeeyay in isagoo sujuudsan u dhintay marka qaar kood ay culimadu tilmaamaan waxyaabaha nihaayada qofka raadka kuli wa qalbigiisa غالبا qofku xitaa isagoo macsuul ku jira hadii uu yahay qof hambala oo mutawaadica oo kibri aanu ku jirin ilaahay uu islaaxay laakiin qofku isagoo caabida hadan laakiin yatakabbar ala khalqi Allah wuxuu maleeyaa annahu ahsan min an-nas ما أحد وصل إلى ما وصل إليه كبر كاسي قلبي جيسا كتيرا أيام مركها قاركوت صوابا إن أنو إله النهاية في عن أنو كأرساقن بعشان شيء شو إخواني خطرها إلا ذا وحكميضة إما كواحد لجاري هير والعياذ بالله رجي الدمر كيوا ودعباية هبلا يو ويلل وضفرية أي شيء شدي ودعباية ما هذا عيسى شيء شدي أفقع لو قبسنا يا بهاشي بايب كي ninba ku haysta afka andhuufkiisii iyo dhareerkiisii ayaa baybka ku wada yaala gabar buu dhiibaya iyana markay afka ku qabsato baybkii ee dhareerkeega andhuufteedii oo ku yaala baybkii ay nin kale u dhiibaysa waxaan akhriyay culimada islaamka sida imaam Nawawi rahimahullahu ta'ala oo leh tin dumar haday tini ka go'do qof dumara oo iyadoo dhulka taala kuma banaana inaad eegto ويمنو تين هويني أو قاضر دول كتالا أما ميسكا دول تالا هداد إكتو أو دول قرتيني هويني تين تهدي تاعي كوما بنانا ويحيري وحي أي حاران تاعي إن لإيغو يسوو نول حالة الحياة حالة دمشقنا ما بنانا
in la taabtaana ka sii daranba سكرميسيد dadka saalixiinta qaarkood haddii masakoo kale in muwaasalaadka caamka ama basaska ama diyaaradaha ama marka hadduu arko kursi ay haweeney ku fadhidii ama gabar saalixada kursi uu ku fadhiyay kursi marka in badan ku fadhido kursigu uu diiraya dadka saalixiinta ee warac ali waxa iska ilaaliyaan kursi haweeney ku fadhiday oo wali sii diirran oo kuleelkii wali ku sii uu ka laga dareemayo inuu ku fariisto waracan dumarka saalixaadkuna waa saasi bal dadkan baybka iyagoo candhuuftiya dhereerkii ku wada yaalo isku dhidhiibay qiyaasa marka shiishadu mashaakil badan bay leedahay laakiin umuuman ikhwaani wa akhawati waxa weeyaan baninkaasi ilaahay toobadu ilaahay ku arsaaqay meeshu joogay iyo meeshu ku dambeeyay subhanallah walillahi fi khalqi shun sahih sida hore loo yiriba sheekada labaad waxay la xiriirdaa nin dhalinyara oo dalalka carabta ka yimid soo garan maysid maraykan buu imanayay markaa markuu maraykan arday ahaan buu imanayay طبعا markuu soo socday khidad baa madaxa ugu jirtay waxbuu soo samaystay waxbuu soo hindisay hindisi maxaa kamid ahaa maraykan waxaad ugu tagaysaa de waa bilaad al-lahw wal-la'ib bilaad al-banat bilaad al-khamr waxa soo dhan waxa weeyaan waad baashaalaysaa hablahaas kala baashaali naad kilaabis baa tagi doonta khamr baad cabi xashad baad cabi waxa soo dhistay markuu maraykan yimid ayaa waxa dhacay gurigiisii apartment ayuu kreystay oo arday jaamacadii soo sajilay deetana ilaan jaamacadii uu imanay shaqooyinkiisii kala ayuu bilaabay habeenkii ugu horeysay uu tagay night club waa taqaanaan maraykan waa nolol maajina weeyaan waa nolol وحضارة مادية سيد قطب الهار رحمه الله تعالى خاوية من القيمة الروحية وحدود مرها نايت كلابو تجي halkii sidoo u dhaansaayay iska ilaalinay khamriga cab misaha cabin waa shaydaanka weeyaan xaajiskaasi macsiyada ka ilaalinay markaad jabiso markaas ugu darantay hablihii dhaansaayay ayuu fiirfiiriyay ilaa waa nin arrin Mareykan yimide wuxuu yiri caaw Soomaha caawta ugu quruxda badan night clubkaasi waa in ku raacday weeyaan oo gacanta qabsato إيشيسا waxay ku dhacday inaan malaamixdeedu ay yihiin maxay malaamix carabiyad oo eeg buu arkay laakiin aad u qurux badan markuu saa u eegay bay iyaduna ayuu arkay iyadoo soo eegaysa iyaduna waxa uu gartay inuu wiilkan dhalinyartii oo carabi yahay markay wada hadleen baa waxay ugu soo horeysay xagad carabiyad baan ahay soo aad u farxay لكن واحد يقول حكسيسي لكن واحد هاي نصرانيات بنا هاي بيتري كريستان بنا هاي بيتري كريستان أدبو وحو ماضي إن الرعد أيو يديستي waxay ku tiri may kuma raacayo shuruud baan hayaa shuruudeeda hadda ka soo baxdo waa saaxiibana laakiin shuruudaha hadana ka soo bixin saaxiibi mayno maalin dambe ay la soo hadashay waan inaan ku arkaan doonayaa soo imaad dooneen ha way sarkeen waxay sidaa macatab cross saliib ay sidaa weyn saliib macatabkii bay ku tiri crosskii hadaa doonisid inaan iska siiyo waxaan ka rabaa inaad macatabkaad xirato taraddada kasiiran sheekadana mid kugu daray magaciisa maxamed buuha way hadhowba إنه حكى شيء دونا ما يعيش محمد بوها ما نحدا ما حدا ما ينحدا وارجع لك واحد بكوين الحب يعمي سماها شعيل كيبا عند تري سليب كيبا حدي الراع ما يكون راعي ما شرط كلا أيام لي حوابي السعودين هذا المالين كلا أيوه يردي سيكون تري وريا يديك سبي تري هدا دوني سوينا صاحبة دار نقضه كريستان بارا هاي إن كريستان نقطان دنيا بيت علايس أي يكون نقطي لكن هو محي قفكم مركو الباب كالشركة يسكفروا وكون عيا إن بدن بكتر الدودي أو كنا نقضي أرنكي لكن أخيرا
تنصر intaa kumay joogine waxa tiri kaniisadaadii raacaysa markuu albaabkii kaniisadii weynaa markuu sidaa uga galay uu dhax fariistay ayaa waxa ku soo baxay wuxuu ahaan jiray iyo meeshuu ka yimid halkii buu ka soo baxay uu soo rooray apartmentkiisii buu ku soo noqday wuxuu xusuustay inuu magaciisu maxamed ahaa wuxuu xusuustay aabihii markuu salaada subax u kicin jiray wuxuu xusuustay awowgii oo gacanta haya oo masaajidka geynaya wuxuu xusuustay musxafkii quraanka ahaa ee isagoo yaro dhalinyara uu quraanka ka barin jiray wuxuu xusuustay hooyadii oo markuu guriga soo galaba ku leh yaa waladi allah yahdiik yaa waladi allah yahdiik yaa waladi allah yahdiik inankaygo ilaahay ha ku hanuuniyo inankaygo ilaahay ha ku hanuuniyo inankaygo ilaahay ha ku hanuuniyo wuxuu go'aansaday inuu qalad weyn ku dhacay inuu toobad keeno ayuu doonay laakiin shaydaankii baa la hadlay oo waswaasinaya oo ku leh it's too late hagu ilaahay toobad kaaga aqbali adoo maxamedaad koros xidhatay adoo maxamedaad khamri cabtay adoo maxamedaad naag xaaraan ka aad raacday adoo magacaagu maxamed yahay baad kristaan noqotay ood kaniisad gashay laakiin kaana rajulan nin buu ahaa rumaysan inuu isbedel sameyn karo oo noloshiisana uu bedeli karo jaamacadii buu kansal gareeyay gurigii uu ka baxay one way ticket buu dalkiisu u goostay dalkiisu uu ku noqday airborg markuu ka tagay ee gurigii uu tagay ayaa rama nafsa fi xidni ummihi hooyadii dhabtiisii isku tuuray soo hooyadii buu hagareeyay isagoo ooya hooyadii aanay garanay limaada yabki why he is crying muxuu la ooya hooyadii waxa dareentay laakiin in maxamed noloshiisii ay isbedeshay min masjidin ila masjid min khayrin ila khayr min amalin salih ila amalin salih masaajid buu ka baxaya masaajid kale ayuu tagayaa daris buu dhageysanaya daris kale uu dhaafaya waxa uu soo gashaa habeenkii isagoo habeenkii u taagan tahajjud ama sujuudsan habeenada kamida ee sidii caadadeeda ahayd ay istirso eeg maxamed waxaad aragtay maxamedoo سجودا يا محمد يا ولدي يا محمد يا ولدي ما يجيب ومو جواب ويش كذي ولا لا عرورتي هذيك لا أيوة دي أتركالي إنك ولكن كالي إيجا ما هالله أيوه إنما ذي مت كم إذا أنت كسر دوادي أي نظر إلى أخيه ولكن بفيري يسوي سجود سن لكن وحو أركي إن ولكن النفتك بحذي يا أمي ولدك مات هوي إن كاجود انتي هوي دي مركي مقصين كقول كمركي سوق شيء همين كاسي وحي كأورسي عرفي أنا الدنيا لجوا قون وآد أودجون وميل كده تلو كيمد محمد وحويا ميشو تشوغي إنه قالوا بي ومعتم حدي وخمر عبي وكنيسات قالي مركو rumaystay in isbedel sameyn karaayo isbedelkaasina uu ku sameyn karo an yatuuba ila Allah in ilaahay u toobad keeno nihayadiisi waxay noqotay in ilaahay subhanahu wa ta'ala an yaqbida ruuha wa huwa sajid fi dhulmati al-layl qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh